dowladda xasan sheekh maxamuud kaliya waxay ka adag tahay shacabka Soomaaliyeed oo waliba danta yar oo aanan awoodin in ay sida Ethiopia ay maanta ay u soo xadgudubtay Soomaaliya aysan iska celin karin xasan sheekh maxamuud aawe xasan sheekh maxamuud oo lahaa waxaan ka celinayaa garoonka degmada Doolow diyaarad kasta oo soo degto waa ka celinayaa aawe nimankii lahaayeen Doolow diyaaradda ma kama soo degayso hababaay dulma judiido sidee dareemaysan ceeb iyo fashil ay dhex taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxa maanta diyaarad ay leedahay Ethiopia Airlines si toos ah uga soo cagdhigatay ama si toos ah uga soo duushay Addis Ababa waxayna imaaday magaalada Kismaayo markay imaaday waxay qaaday wafdi iskugu jiro wasiiro iyo oday dhaqameed ka soo joodo gobolka Gedo hadaba waxay si toos ah u keentay isla maanta degmada Doolow oday dhaqameedkii iyo sidoo kale golihii wasiirada ee Jubbaland halkaas markii ay keentay diyaaradii mar kale ay ka sii kicitamto waxay ku laabatay Addis Ababa anaga oo la yaabaneen arintii shalay ay Kenya ay ku soo xadgudubtay Soomaaliya ama Kenya ay ku soo xadgudubtay madax banaanadeeda oo si toos ah diyaarad ay u leedahay Kenya ay u leedahay si toos ay u leedahay diyaarad ay leedahay Kenya oo waliba kuwa militariga ay shalay ay ku soo degtay Kismaayo Axmed Madoobe ay qaaday Nairobi ay geysay anaga oo la yaabaneen oo dowladda federaalka Soomaaliya sidee ay u dhaqmi doontaa Kenya aan u lahayn oo waliba dowladda federaalka Soomaaliya oo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan ay u yartay safiirka u fadhiyo Kenya isla Muqdisho idii u yartay ee warqadii xarxariiqday ay u dhiibtay anaga oo tii oo la yaabaneen ayaa maanta waxa dhacday Ethiopia in ayadana si toos ay diyaarad u soo fasaxdo raadeerka u dansato ay Kismaayo imaado ay maamulato Doolow ay geeso ay ku laawado halkii ay ka soo kicitay oo ahaa Addis Ababa dulma jidiido sidee dareemaysiin ceeb iyo fashil ayaa dhex taagantiin hadduu ahaan la wasiirka arrimaha dibadda hadduu ahaan la wasiirka arrimaha gudaha hadduu ahaan lahaa xasan sheekh maxamuud wasiirka arrimaha gudaha markii aan leeyahay soo fiiri Soomaaliya maanta maxaa la isku haystaa meel kasto qabiil ayaa la isku haystaa meel kasto waxa leeyahay beel hebel baa isku dagaashay aawe wasiirka arrimaha gudaha oo xalin lahaa waxaas aawe wasiirkii loo doortay maxallinka hadaba dowladda xasan sheekh maxamuud waxa ogeyn 3 jeer ama 4 jeer tira ku dhow in uu u tagay Addis Ababa oo waliba markii ugu dambeysay asagoo faraxsan ka soo laabtay hadaba Ethiopia way ka aqli badan tahay xasan sheekh maxamuud waxa tahay 70 jir meeshii laga rabo maskax iyo fikir inaad la imaadid Ethiopia waxay leedahay xasan sheekh maxamuud waxa uu dhimay 1 sano iyo 4 bilood haddii 1 sano iyo 4 biloodna ku dhileela daniina siyaasadeedna hoos ka wata waxa la ogaaday xasan sheekh maxamuud in uu yahay nin aanan dalka iyo dadka aan u turin marka dawlad kasto u baahan dana kale sida ay rabto ay ugu dheelaysaa Kenya waa aragnay oo shalay ay si toos Axmed Madoobe in ay la jirto u soo sheegtay hadaba Ethiopia maanta ay si toos ayadana shaaca u qaaday hadaba waxaan ogeyn Axmed Madoobe in halkaas uu ku gacan sareeyo oo sidoo kale dagaalkii ay la gashay Axmed Madoobe filla Soomaaliya in halkaas ceeb iyo jab oo ka soo gaaray waxay isku dayday filla Soomaaliya in Axmed Madoobe ay ay kula dagaasho dhinaca tacticada militariga waa looga rahay oo wixii ka dhacay Rais Kamboni waan wada aragnay marka la isku dayday dowladda federaalka Soomaaliya in ay degmada Doolow haddana ay arrimo kale ay ka irgeliso oo waan aragnay wixii ka dhacay halkaas in ciidamo Ethiopian ay kala qayb qaateen dagaalka marka la isku dayday dowladda federaalka Soomaaliya kulbiyo hadaba maxaa dhacay intaasi oo ceeb ah oo fashil ah ayada oo ay dhex taagantahay dowladda federaalka Soomaaliya fadlan madaxweynaha iscasilo oo xilka ha iska casilo wasiirka arrimaha dibadda ha iska casilo sababtoo ah waxa uu ceeb iyo fadeexo uu dhex keenay dowladda dhamaale oo adiga aad hogaaminayso 70 jirkan xasan sheekh maxamuud ay dhahaan dalka wuxuu u soo hooyay ceeb iyo fashil waxa uu dhex geliyay ama uu dhaxda ka taagan yahay jahwareer siyaasadeed oo uu geliyay dalka hadaba maanta cadowga Soomaaliya waxay leedahay 3 cadow iga soo qora cadow afareeye ma jiro
cadowga koowaad waa Ethiopia waa kow, cadowga labaad waa Imaaraadka, cadowga saddexaad waa Kenya. haddaba odayaasha maanta soo gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo, oday dhaqameed ka soo joodo gobolka Gedo ay ahaayeen wasiiro ka tirsan Jubbaland ayagana maanta ay diyaaradaasi waday. sidoo kale waxaa xogaha qaar ay ku heleynaa in diyaaradaasi markii ay kasoo kicitimaysay Addis Ababa ay soo qaaday saanad military halkaasina ay geysay magaalada Kismaayo. haddaba ceeb iyo fadeexo iyo waxa meesha ka dhex taagan waxay u soo hooyatay dulmajidid. dulmajidid ma halaan ceeb iyo fadeexo ayaa dhex taagantiina. fadlan dalka sida waqtiga yar oo idin haray oo sanadkii 4 bilood ah ama sanadii 4 bilood ah kaliya dalka intaas aamusnaan siyaasadda u qaboojiyo kaliya wax ka soo dhaco isha ka daawanne dawladda sida lagu yaqaanay iyo awaamirta ay bixin jirtay dawlad aaway horta Xasan Sheekh Maxamuud la taliyaashiisa waxaa ka kooban Sheekh Cali Wajiis. dad far badan ayuu wuxuu ka dhigtay la taliyaal. haddaba daawada haddii aad soo gaartay muuqaalka dhamaadkii iyo guntii iyo gunaanadkii waxaan ka hadalnaa waa arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale wararka xamaasadda leh ama dhacdooyinka markaasi taagan. fadlan channelka naga daawanaysid waa YouTube-keena Man Official. haddii uusan ku wayn subscribe saaro si aad noqotid daawadaha koowaad oo muuqaalkan soo dhigno uu soo dhaco. muuqaalkana like-ta ka iloobin, fikradaadana nagala wadaag sida aad u aragtid damaca Ethiopia ee maanta ay kusoo duushay Soomaaliya iyo sidoo kale shalay ahayd Kenya ayadana ay kusoo duushay sida aad u aragtid iyo sidoo kale fikradaada qaybta hoose ee comment-ga nagala wadaag. inta muuqaal midkaan la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Man Official sidaas iyo nabadgelyo.